بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين walaalayaal saynu ognahay waxaynu ku jirnaa bishii Shacbaan Aisha radiyallahu ta'ala anha iyo saxaabo kaleba waxay wariyeen nabiga kaleey salaatu wasalaam bishan inuu soonka badin jiray soonka sunnaha ilaa Aisha aytii radiyallahu ta'ala anha nabiga kaleey salaatu wasalaam bil uu ka soon badan yahay ma arkin bilahan bishatan Shacbaan ana marka Ramadaan laga reebo Ramadaan deeda waa waajib wala wada soomaya nabiga markii ay weydiisay kaleey salaatu wasalaam rasuulka Ilaahay maxaad u badisaa soonka Shacbaan wuxuu nabigu ku jawaabay kaleey salaatu wasalaam Shacbaan waa bil dadku inta badan ay moogan yihiin waayo waxay u dhaxaysaa nabiga kaleey salaatu wasalaam bishii Ramadaan soonkeedu waajib yahay oo loo wada diyaar garoobayo iyo bishii Rajab ay soo dhaaftay oo ahay bilihii xurmada lahaa soonka bilaha xurmada leh uu fadli badnaa marka dadku inta badan Rajab way ku soo dadaaleen oo waxay ugu soo dadaaleen waa bil xurmo leh Ramadaanna way sugayaan oo waajibkiiba weeye dabeetana nabigu wuxuu kaleey salaatu wasalaam bishaan dadku xoogaa way moogan yihiin saasan soonka u badinaya marka waxa la rabaa kow sunnayaasha nabiga kaleey salaatu wasalaam laga faa'iideysanay inay ka mid noqoto in sidii nabigu kaleey salaatu wasalaam soonka sunnaha u badin jiray bishaan la badiyo taa waa qodobka labaad qofka muslimka ah si guud Ramadaan waxyaalaha lagu diyaar garoobo waxa kamid ah in bisha Shacbaan la sii bilaabo istiqaamada iyo toosnaanta iyo acmaasha khayrka ah iyo quraan akhriska iyo dadaalka iyo sunnayaasha la sii badiyo dabeetana qofka asagoo diyaarsan oo maaragtay ayaama soo soomay oo quraan soo akhristay oo u diyaarsan inuu markaas si fiican Ramadaantii u hawl galo ayay bishii Ramadaan imaanaysaa hadii kale bisha Ramadaan adigoo xaalkaagu iska maaragtay bariga dhexe yahay ayay imaan dabeetana intaad is hagaajinaysidba waxa ku dhaafaya soonkii baa ku dhaafaya ama bishii Ramadaan ayaa ku dhaafaysa marka bishan in la sii guda galo maaragtay tartiibta iyo wanaajinta nafta iyo tahiritaankeeda aad bay muhiim u tahay qof walba waxaynu kula dardaarmaynaa muslim ah oo muuqaalkani gaadhayo wanaaji naftaada inta aysan Ramadaan ku imaanin si adiga oo wanaagsan oo xaalkaagu meel fiican maraya Ramadaan kuugu timaado kadibna aad u sii duushid insha Allah ta'ala assalamu alaykum